kadib shir muddo maalmaha uga socday beesha maxamed sacaad idrays degmada ceelafweyn waxay isku afgarteen kuna shaaciyeen jiif caaqilka cusub yaasiin suleymaan maxamed oo noqon doona jiif caaqilka beeshan idrays iyadoo 15 bishan 12aad ee sanadkani munaasabada caleemasaarkiisa lagu qaban doono degmada ceelafweyn kadib markii uu jiif caaqilkii hore maxamuud nuux maxamed uu xaalad caafimaad darteed iskaga wareejiyay xilkaasi waxana waayeelka iyo aqoonyahanka beeshani sheegeen in inta ka horeysa muddadaasi uu xilka jiif caaqilnimo sii hayo jiif caaqilkii hore maxamuud nuux maxamed iyo 10 guddi ah oo la shaqayn doonta waxana waayeelka beeshani oo madashaasi hadalka u kala dambeeyay ay shaaciyeen jiif caaqilka cusub ee beeshani maxamed sacaad yaasiin suleymaan maxamed halkan waxaanu saxaafadda ka baahinaynaa annagoo ah reerka la yidhaho maxamed sacad oo aanu isugu nimi waayeelahaan shir waxaanu isla garannay haddii ilaahay garto in ilaa 15 bisha 12aad uu sii wado maxamuud nuux maxamed jiif caaqilkii hore isaga oo cudur daartay oo ka cudur daartay xanuuno iyo haddii alle waxyaabaha haddeer iska jira ee dhibaatooyinka ah ka cudur daartay waxaanu go'aaminay ilaa bisha 15keeda inuu sii wado nabadoonnimadiisi iyo jiif caaqilnimadii uu ku shaqeeyo guddi 10 la sii shaqayso haddii la gaadho 15 bisha 12aad jiif caaqil yaasiin suleymaan maxamed baa u imanaya oo bedelaya taana waanu isla qaadanay waxaanu markaa u sheegaynaa darisada iyo dadka nala nool iyo yoonis ismaaciil iyo haddii alla idmaayo meelaha dee dadkii aanu wada shaqayn jiray ama wax naga dhacayeenba hawshii reerka maxamed sacad la yidhaha inay sidaa u soconayso laguna ogaado looguna soo hagaago shirkii maxamed sacad isugu yimi wakhtigan oo uu ku ballansanaa inuu isugu yimaado waxaa la go'aamiyey markii jiif caaqilkii hore hawsha uu ka cudur daartay oo xanuun iyo adugu howlo dartood inuu uga nasto uu go'aamiyey ayaa shir la isugu yimi shirkii la isugu yimi waxa la qaatay in 12aad 15keeda in la isugu yimaado shir kale oo caaqilkii kale lagu doorto intaa ka horeysana oo hawsha sii hayo jiif caaqilkii hore ee hawsha horuhayay guddi 10 oo reerka oo la qabtayna ay la shaqayso sidaasaa shirkan la go'aamiyey sidaasaa loo sheegayaa beelaha aanu deriska nahay iyo intaanu wada shaqayn lahayn iyo tolka dhammaantiiba waxaan marka hore aad ugu mahadnaqayaa tolweynaha maxamed sacaad ee sida sharafta iyo mug leh shirarkii dhowrka cisho ugu dambeeyey socday go-aankii maanta kusoo qaatay iyagoo waqtigoodii juhdigooda geliyey shirkan oo kasoo bilaabmay min dibad ilaa aakhirkiina gudaha kusoo gabagabay magaalada ceelafweyn ayaa iyadoo ah jiif caaqil maxamuud nuux maxamed nuur uu howlo shakhsiyan oo caafimaad uga cudur daartay inuuna jiif caaqilnimadii sii hayn karin ama shaqadaa sii wadi karin darteed markii dambena markii dib laysugu noqday la go-aansaday inuu hawshaa la wareego yaasiin suleymaan maxamed nuur oo isna bisha 12aad 15keeda hawshaa uu isna waajibaadkeeda ula wareego haddii ilahayna gaadhsiiyo wixii nool intaa ka horeysana uu sii joogo jiif caaqil maxamuud nuux maxamed nuur oo la shaqeysa guddi 10 nin oo ka tirsan maxamed sacad in hawsha la sii wado jiif caaqilka cusubna laysla gaadho xilliga December 15keedasna hawsha la guda galo ilaahay waxaan ka barayaa maxamuud hawshii hore qabtay inuu ka abaal mariyo ninka cusub imanaya in ilaahay hawshiisa u yasiro
beelweynta maxamed sacaad ee horena ula shaqayn jirtay maantana la shaqaynaysaa hawshaana noo fududaysa inay gacan iyo hiil iyo hooba naga siiyaan si wanaagsan noogu fududeeyeen waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran. halkan waxaanu ka shaacinaynaa waa shaacin waxaanu ka shaacinaynaa haddaanu nahay beesha maxamed sacaad ama darays jiif caaqilka cusub ee yaasiin salebaan maxamed kaasoo bedeli doona jiif caaqilkii hore maxamuud nuux maxamed oo waqti badan soo shaqaynayey kadib markii jiif caaqilku uu cudurdaar sheegtay xanuunsaday arrimo caafimaad oo isagaa u khaasa aawadii beeshuna markii ay shirtay ay isla garatay inuu iska nasto caaqilku hawshii uu hayay inta badan reerka usoo hayayna runtii aad buu ugu ammaanan yahay waana waxqabad fiican oo muuqda oo runtii in badan uu ka soo shaqeeyey bay ahayd maantana xaalad caafimaad sababa aawad caafimaad awgeed buu hawshaa uga nastay intaasaanu shaacinaynaa waxaan u sheegaynaa bulshada iyo ummadda aan wax wada leenahay iyo dadka jaarka ahba 15 bisha 12aad inuu si buuxda ula wareegi doono jiif caaqilka cusub ee yaasiin salebaan maxamed nuur jiifkii hore ee maxamuud nuuxna intaa uu la shaqayn doono guddida odayaasha soo sheegeena ay hawsha la wadi doonto. waxaan maanta soo gudbinaynaa natiijadii ka soo baxday kulankii darays ee soconayay dhowr cisho ilaa dibad ka soo bilaabmay muddooyinka dambena ceelifeen ka socday oo aan ku soo gabagaboonay taasoo ka dhalatay kadib markii caaqilkii hore jiif caaqilkii hore maxamuud nuux maxamed ay la soo darseen xanuuno howlaha ka wadi kari waayey oo u cabasho ah beeshuna la qaadatay waxay beeshu isla qaadatay in hawshii lagu buuxiyo halkiisii oo ay si fiican isula qaateen in yaasiin salebaan maxamed nuur uu noqdo jiifka caaqilka dambe ee beesha maxamed sacad sidaasaanu u sheegaynaa dhammaan somalilan beelaha dariska ah iyo dadka gobolka nala degan intaba waxaanu u sheegaynaa inuu jiifka caaqilka cusub uu yahay yaasiin salebaan maxamed nuur. Sidii Maxamed Eraan, Badda 24 TV, Ceelafweyn.